بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Khalid Axmed Aweys waxaan kamid ahay ardayda culumta teknoolajiyada ka dhigata jaamacadda Armas maanta waxaan halkan u joognaa waxa weeye inaan baaqaya gaarsiino dhammaan bulshada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen maanta waxa dhamaaday dabaqii koowaad ee National Library-ga marka maanta baaqaya halkan ka dirnaa wuxuu yahay sidii loo soo gaarsiin lahaa bugaagtaas runtii ah kuwa manaafacaad leh ha noqdaan kuwa dugsi hoose dhexe dugsi sare iyo heer jaamacadeedba runtii annagoo og dadaaladii dalkan lagu horumarinayay ka qayb qaateen qurbajooga dalku runtii waxaan u soo jeedinaynaa in ay qayb lixaad ka qaataan bugaagta iyo camiraadda library-ga waxaan u soo jeedin lahaa ku boorileen qof kasto imanaya sanadkan samarka ama xagaaga dalka inuu soo qaado 3 buug oo faa'iido leh qofkii aan sanadkan imaneynina inuu runtii soo dhigo kaargoga baaqayga kaliya maanta kuma waajahna qolada qurbajooga waxaan baaqan mid ka cod dheer u diranaa bulshada gudaha ku nool ama joogta oon runtii gaarsiinayno maanta uga baahi badan yihiin dadka maanta halkan qurbajoogan uga baaqano aan iyaguna ku boorinayno soo gaarsiiyaan bugaagyo wixii kale tabarucaad ay library-ga ugu deeqayaan waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa
maamulka wasaaradda waxbarashada ugu horeeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdullaahi Dheere oo intii uu xilka hayay runtii qayb lixaad ka qaatay dardargeliyay in library maanta halkan soo gaadho runtii isagana aad baan ugu mahadnaqayaa wad mahadsantiin وبه نستعين على أمور الدين والدين إن أنا جو كتير سن كواحدة دلنيرة إن جامعة أرضية جامعتها كلها اللي نافكو ده مجا يقولون هي أحمد عبد محمد وحانوا مدة الصوماليات كرهانوا مدة هي الصومال الملك سويت شغان وباقينا إن يتاجر هي اللي هو بقى لسه جريش تاجان ليبراري قرن كسومالان وما أنت دبقي كوبات لما يسترين هي قل ينا فيس كيا موتش قل بعد إلى ورني بوقتها إن قوت كمسكحات أي ومضوه قاتان ayaa uu akhrisku ka mid yahay umaduna waxyaabay ku kala horumaraan waxa kamid ah akhriska iyo qoraalka umadiba umada ay ka akhris badan tahay bay adduunyada ka horeysa sida qofku ugu baahan yahay quud jireed oo uu quuto oo cunto iyo cabitaanba ah ayaa maskaxduna ugu baahan tahay quud ay qaadato oo runtii noqonaya akhriskii sida darteed waxaan leenahay umadeenu si ay u horumarto oo u hiigsato oo uga qayb qaadato tartamada caalamiga ee adduunyada dhalinyarada u dhaafto dhalinyarada adduunka aynu soo caawinay library-ga qaranka buug iyo laba buug iyo saddex buug iyo afar buug iyo markaasi wixii la karayaba hal lagu soo darsaday library-ga qaranka aad iyo aad baad mahadsantihiin marka hore ilaahay baa mahadalay aan isku keenay halkan waxaan baaq u diraynaa magacayga waxa la ka Cali Yuusuf marka hore waxaan ka socdaa jaamacadda Hargeysa University haddaan nahay ardayda jaamacadaha anoo ku hadlaya afkooda waxaan baaq u diraynaa dadka caalamka waxaan baaq u diraynaa dadka qurbo joogta iyo qolqol joogtaba waxaan u leenahay hala soo caawiyo library-ga waa halkii kaliya aan maanta aan uga baahanayno wax ku akhrisano library-ga hore ka jiray Hargeysa waa tan la baabiyay waxaan leenahay hala soo caawiyo library-ga assalaamu calaykum بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وخضرة جبريل يوسف وحن كسعودة جامعة هرقيسة حقيقة لابريري أما ناشنال لابريريغان وحي بحيه يعني ضيعتير بدن إنه يعني بالشدة رئيسو مالان قرب تشوغا أما سيقلقل تشوغا إنه وحي تبرعات يوهيان هدي نغطو بوغاقي هدي نغطو تبرعات كروا يكسو عاويان وحويان يعني حقيقة مركا لقا حد لي قرال ياخرس waxaweyaan meelaha ugu muhiimsan ay bulshada ku horumarto kuwaasina hadaan iska dhisan ma noqon karno kuwa guuleysta ama se kuwa horumar gaadha ma jiro library maanta ay dhalinyarta reer Soomaaliland iskugu yimaadaan ama dhalinyarta reer Hargeysa marka laga hadlayo hal buug bal tusaale ahaan haddii aad hal buug jaanis u heshid hal saac oo joogtid suuqa halkeed ku akhrisan karaysaa anagu haddii aan nahay waliba khaasatan hablaha daynamadu masaajidadii baa furanay jaanis u helayaan runtii dhibaatooyin baa naga haysata haddaan nahay bahda qoraalka iyo akhriska hablo badan iyo inaba badan oo xajilayni noqdaan yacni qoraalo inay noqdaan akhristayaal wanaagsan si aanu waqtigu saamaxaynin goob fiican ama sabalays fiican iskugu yimaadaan wax ku akhristaan aqoontana isku weydaarsadaan sidoo kale waxaan aad baaq ugu dirayaa dawladdeena iyo maxadan qolqol jooga khaasatan reer Hargeysa maadaama iyagu yihiin kuwa ka faa'iideeya waxaan leenahay library-gu maanta idinku inii baahan yahay warkiisaan 2012 la dhagax dhigay welina hawshiisa wataas inagu bayna sugaysaa hadday nahay dhalinyar akaadamiyada iyagu qoraalka iyo akhriska ayay iyagana baaq u diraya dhalinyarta kuwaas iyagoo ah haldoorka wax akhriska iyo qoraalka ee reer Hargeysa waxaan leeyahay library-ga maadaama idinku tiidin kuwii yani ama ku magacnaa ahay akaadamiyada akhriska iyo qoraalka nahay idinku inii baahan yahay maadaama aanay jirin meel kale iskugu timaadaan halaasan ku soo koobi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa maxamed cilmi cali waxaan ka socdaa jaamacadda Armas qaybta IT-ga waxaan shacabka reer Soomaaliland haddii qurbo joogtahay iyo haddii qolqol joogtahayba u dirayaa baaq ah inay si casri ah u soo qalabeeyaan library-ga qarankan cid kalena sugi maayo inagu ina sugayaa haddii dawlad tahay haddii qurbo joogtahay haddii qolqol joogtahayba si aynu ugu kobcino maskaxdeena iyo maskaxda carruurteena wassalaamu calaykum الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه magacaygu waa Cabdiraxiin Steeg Cabdilaahi waxaan ka tirsanahay bahda qaranka iyo qoraalka hadda halkan aynu joognaa oo library-ga qaranka Soomaaliland 2012 uu madaxweynuhu dhagax dhigay muddada 4 sano buu socday haddana wax shaqo ay kama socoto waa qabiyo waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada wax ka macna daran baad ku bixisaan lacagta inay noo dhamaystirtaan anagoo ah dhalinyarada Soomaaliland library-gan
una baahan yahay wadanku iyo dhalinyaradu ummadina ummadda ay ka horumar badan tahay oo ummadda ay ka qalinka iyo qoraalka wanaagsan tahay waxaanu ku baaqaynaa dowladdu inay doorkeedii ay ballan qaaday ka soo baxdo waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ganacsatada Somaliland iyo qurbajoogaba ugu baaqaynaa inay dhalinyarada u dhammaystiraan librariga qaranka. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Axmed Ibrahim Cabdiraxmaan ka tirsan ardayda jaamacadaha marka hore waxaa mahad mudan cid kasta oo ka qayb qaadatay wejigii hore dhismaha maktabadda marka xigta iyadoo arkaysaan in wejigii hore noo dhammaaday waxaa hadda bilaabmaya in wejigii hore la qalabeeyo ama weelka aynu dhisannay la buuxiyo oo la dhigo cilmigii ay ka faa'iidaysan lahaayeen dhalinyarada Somaliland marka hore waxaan baaq u dirayaa cid kasta oo u dhalatay dalka Somaliland ha noqoto ganacsato ha noqoto shirkad ha noqoto dawlad ha noqoto muwaadiniin arday iyo macallimiin iyo cid kasta oo dalkan sheegata inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka maktabadda qalabaynteeda haday noqoto buugaagtii siiba waxaan baaq u dirayaa ganacsatada waayo inta ugu badan iyaga ka howlan ay bulshada ka ganacsadaan ama dantooda ku gaaraan si taa looga gudbo in badan baad waqti ku bixinayseen inaad quud calooleed ka shaqaysaan hadda waxaa la gaaray inaad ka shaqaysaan ama aad ka qayb qaadataan quudkii caqliga si bulshadeenu u noqoto bulsho la tartami karta bulshooyinka kale sidoo kale dowladda iyadana waxaa waajib ku ah inay bulshada hormuud uga noqoto wax kasta oo horumar u ah inay iyagu ka soo qayb qaataan soo qaadaana buugaagtii lagu furi lahaa maktabadda inta ugu badan si ay uga dayato bulshada iyo shacabka iyo inta qurbaha joogtaba mar kale iyo mar saddexaadba inagoon cid gaara mas'uuliyad saarayn qof kasta oo ardaya macallina ama bulshada ka mid ah hadduu xil iska saaray inuu hal buug keeno maktabaddeenu way inoo buuxsamaysaa dabaqyada kalena waa laynoo dhammaystiraya marka guud ahaan dhammaanteen aynu xil iyo waajib iska saarno sidii aynu u dhammaystiri lahayn maktabaddan inagoon cid kale wax ka sugayn cid kalena eegayn aynu istusna inaynu isku filannahay meelna gaari karno waxna samaysan karno waxna qabsan karno aad baad umaadsantihiin رب العالمين والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم أنا مقعي ومحيدين عبد الرحمن حسن وحن كمده هي أرضية جامعة هرقيسة waxaan halkan maanta isugu nimid baaq dheer loo dirayo dhammaan bulshooyinka reer Somaliland intii gudaha joogta iyo intii dibadda joogtaba baaqaygaasoo daaran in library-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee National Library maanta dhismihiisa qaybtii koobaad alxamdulillah inoo dhamaatay qaybtii labaadna dhismaheedii insha Allah aan ka sugayno in dadkii mas'uulka ku ahaa in dhisida hawshan waxaan runtii u baaq u dirayaa dhammaan qurba joogta reer Somaliland ku hawlan ayagu inay sanad kasta oo samara wadanka yimaadaan ugu yaraan inay sanadkii ay imanayaan keenan 3 buug kii aan imanayna kulli waxaa jira shirkadaha ka ganacsada soo qaadida alaabaha transport systemka marka shirkadahaas inay dadkii aan imanayna u soo dhiibaan cargo-ga cidii imanaysaana 3 buug oo anfac leh oo isugu qaadan lahaa uu keenan library-gan runtii library-gan maaha library dad gaari ka faa'iidayaan waa library dadkoo dhan ka faa'iidayaan siiba dhalinyartu oo maanta Somaliland waxa laga warhayaa 75% waa dhalinyarteen inta maqaaxiya fadhii lahayd intay meelaha kale lagu sheekaysta fadhii lahayd waxa dhaamayna ka soo saarno bulsho wax akhrida bulsho wax qorta bulsho wax abuuri karta taasna takriyatin ku gaarina waxa weeyaan helista buugaag anfacle dhisida qabyaha noocan ee jira iyo dhammaan magaranaysaayay aaladkii noo fududeynayay inaan wax akhrino waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dhammaan ganacsatada reer Somaliland iyagu aad ugu hawlan inay ka faa'iidaan shacabkan masaakiinta ah inay balmaantan u faa'iideeyaan iyaga maadaama uu arrinkan yahay arrin ay dhalinyartu ku faa'iideyso oo qaybna ka noqonayo joogitaanka dhalinyartu joogayaan wadankooda marka waxaan aad baaq ugu dirayaa ganacsatada ayaguna sidoo kale waxaan sidoo kale aan u dirayaa xukuumadda ayaduna qayb ka ahayd dhismaha hawshan marka ayaduna inay wixii ballan qaaday inay ayaduna fuliso sidoo kale waa baaqan dirayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh